maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله نقد wanaagsan wali waxaan ku dhex jirnaa trainingkeena form 1 chapter-ka 6 oo ah hydrogen chapter-kan hydrogen maadaama ay periodic table markii la yiraahdo ay group 1-ka agtaalo laakiin gaar loo tiriyaa sidaas daraadeed waxa lagu dadaalay ama buugaagtan guud ahaan waxay sameeyeen in periodic table-ka la kala jijibiyo laga bilaabo mesela fasalka form 1 oo kale laga soo bilaabo oo hydrogen la qaato form 2 oo kale structure-ka periodic table ko dhan in lagu qaato kale kadibna blocks ahaan in marka S block B block ilaa iyo form 4 ka lagu qaadan doono B block lagu qaadana saasay ku soconayaan marka periodic table kala kala jijibiyay inta waxa la soo qaato marka hydrogen laga bilaabo form 1 ka periodic table ka qayb kamid ah in hydrogen kaas culyaha si gaar loo qaato kadibna structure-ka periodic table-ka uu dhisnaa oo kale in looga sheekeeyo fasalka form 2 markii la gaaro oo kale hadda fasalka 9aad hydrogen ka bilaabna waana chapter-ka 6aad oo ugu dambeeya buugga maxaan ku yiraahdaa form 1-ka ugu dambeeya chapter-ka okay sidaan hore u sheegnay oo aan sameeynay markii buugga wuxuu structure-kiisa marka good marka fiiriso buugga qaabkan dhammaantooda way ka wada siman yihiin oo in ay ka hadlaan content inay ka hadlaan content-iga inay soo bandhigaan oo ah chapter-kaas content-giisa sidoo kale objectives-ka chapter-kaas in casharadii la gala marka content waa casharada chapter-ku ka koobnaa laakiin casharka koobaad casharka labaad casharka saddexaad hadana in la galo tiro cashar marka cashar kastana objective uu leeyahay marka waxaan loogu sameeyay sidaas in ahdaafta la xaqiijinaa casharkaas oo kale u sahlanaato waqtiga markii oo casharka la qoro oo hadana hadafkan la sheego la lahaa meesha aad yeegsanaysid waaba ogtahay marka waxa kale oo la sameeyay hadafkaasi exercise-yadii aad ku xaqiijin lahayd hadafkaasina waa wadana uu leeyahay casharka markii uu dhamaado ala soo bandhigaa sidoo kale experiment-ya ku jiraan iyo activity iyo experiment activity waxa lagu soo dhaweeyaa ardada wixii nolol maalmeedkoodii ay yaqaaneen oo kale in casharka lagu xiro daily life-koodii in lagu xiro oo ardada just loo train gareeyo outside the school noloshoodii banaanka ka ah iskoolka oo kale inay ku tadbiiqsadaan si ay u noqoto aqoontan ay barteen ee buugga oo kaliya ugu koobnaan oo nolol maalmeedkiisa ugu isticmaalo kale activity-gan sidaas experiment-gana waa daliil waaye markaas oo dhigto chemistry daliilku isticmaalo waaye marka dhahdo waxaasaa jiro waxaas inuu jiro maxaa itus oo kale marka la yiraahdo experiment-ga tijaabo inaad samayso tare marka dhahdo waxaan sida hore aan hadda chapter-ka hadda aan ka soo sheekeynin oo kale hore u soo sheegnay xalqadeena shanaad oo kale aan ku soo sheegnay in birihii ay fidsamayaan experiment-ga markaan sameeynay birihii inay fidsamayaan aan tusnay saas oo kale waa marka experiment-ga waa daliilkii oo kale waa marka chemistry-ga la joogo okay chapter-ka markuu dhamaado oo lagu dhameynayo markaas chapter review questions lagu dhameeyaa gudahan chapter-kii review questions in lagu dhameeyo okay marka chapter-kan wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo waa chapter-ka 6aad wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo 6 cashar uu ka kooban yahay wuxuu ka bilaabmaa introduction-kii in laga sheekeeyo kadibna laga sheekeeyo isotopes of hydrogen laga sheekeeyo preparation of hydrogen properties of hydrogen uses of hydrogen iyo some compounds of hydrogen qaar kamid ah compounds hydrogen oo ay kamid tahay wali qaasatan water-ka oo kale oo ka sheekeen doona biyaha iyo waxa la soo qaatay hydrides-ka
hydrideska iyo hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide compound-yadu weli saddexdan qayb ku soo qaadan doonaa. biyaha waa aad muhiimsan. hydrogen peroxide oo markii oo la sameynayo maxaan ku yidhahdaa experimentyadana aad u muhiimsan tahay, iyo compound-yada muhiimka ah ama common compounds-ka lala kulmo hydrogen oo hydrides loo yaqaan. marka taasoo ka hadlaa 6daas cashar. kadibna sidii horeba waxaa lagu soo gabagabeynaa markaasi chapter review questions. chapterkii ahdaaftiisii, chapter review questions waa kaas. chapterkii marka ahdaaftiisii wixii xaqiijinay aad ku assessment gareyn lahayd, aad ku qiimeyn lahayd marka chapterkii. okay waa marka objectives-kii marka chapter objectives buugga markay qaabku u samaysan yahay la saas in chapterka marka la sheego, chapterka content-yadiisa in la soo bandhigo, kadibna objectives-yadiisa la soo bandhigo. chapterka objectives-yadiisa la soo bandhigo, objectives-kiisa oo ah kow discovery of hydrogen in laga sheekeeyo hydrogen iyo sida loo discover gareeyay, cidda discover gareysay, taariikhda, intaba in ardayga uu sharxi karo, dhihi karo xilligaasaa la discover gareeyay, hebelaa discover gareeyay, inuu sheegi karo markuu chapterka dhammaado kadib. waxaa kaloo muhiim ah position of hydrogen in the periodic table. position of hydrogen in the periodic table ma inuu sharxi karo. sidoo kale inuu listi sources of hydrogen inuu listi gareyn karo, meelaha laga helo hydrogenta iyo sourceska laga helo, waxyaalaha inaad xaqiijiso laga helo, taasaa ka mid ah. isotopes of hydrogenna inuu sheegi karo. waxaa kaloo muhiim ah inuu compare gareyn karo different properties, isotopyada different property-yadooda inuu sidoo kale compare gareyn karo. waxaa kaloo muhiim ah in description uu ku sameyn karo preparationka commercialka iyo laboratory preparation of hydrogen, physical properties-ka iyo chemical properties-ka iyo uses of hydrogen-na inuu sharxi karo markuu dhammeeyo kadib. sidoo kale importance-ga water-ka iyo properties-ka ama unique properties of water-na in uu sharxi karo markii uu dhammaado chapter-kan uu dhammaado. ahdaafta la rabo in la xaqiijiyo kuwa la kamid. sidoo kale in la istigareeyo methods peroxides oo kale sida loo diyaariyo iyo property-yada marka peroxide-ka ay leeyihiin oo kale, in dhammaan intaan ahdaaf in la xaqiijiyo. waana meesha ugu muhiimsan oo isha in lagu haayo mudan waayo, sababtoo ah waa wixii aad gaari lahayd ama aad xaqiijin lahayd meesha aad u socotay ama ahdaaftii aad xaqiijinayso. marka tana ugu muhiimsan indhaha inaad ku hayso oo aadan just iska sahashan, ilaa meesha aad u socotay waa meeshii iftiinka kuu bixinaysa ood ku ogaan lahayd meesha aad u socotay oo dhan aad ku ogaanaysa. intaa kadib biology ahaan markii la yidhaahdo marka discussion aan iska isticmaalay. guud ahaan buuggu wuxuu ku dhisan yahay student centered uu ku dhisan yahay, student centered method uu ku dhisan yahay. discussions iyo presentations waxyaalaha ugu badan aad isticmaali kartid marka ku samayso. okay activity-ga marka buugga sidaan hore u sheegnay cashar kasta wuxuu leeyahay marka activity uu ka bilaabmaya jirto marka casharka uu ku bilaabmaya kaad fiiriso. tan hadda water laga hadlaya biyo, casharkan water uu ka hadlaa biyaha. casharkan hadda waterka ka hadlaya oo kale activity-gan uu ka bilaabmaa. marka activity-ga sababta activity-ga loo soo qaadanayna wax kale ma ahan, waxaa loo baahan yahay oo keliya in ardayga wixii uu hore u yaqaan oo kale oo daily life-kiisii ahaa ama la kulmaayay in lagu soo dhaweeyo oo keliya loogu talagalay ama marxabeyn markiisa loo fiiriyo activity. experiment-gana waxaa loo isticmaalaa daliil ahaan aan u isticmaalanaa in waxaana jira markaad dhahdo itus waa kaa inaa saas dhahan oo kale daliil waa marka. kanna waa activity-gii wixii casharka u soo dhaweynaya oo ardayda brainstorm loogu sameyn lahaa. in marka activity-ga isagaa marka qaabka buuggu u qoraayo isagaaba kaa dalbanayo ama su-aalooyin wataa. wuxuu ku leeyahay marka ardayda group u qaybi, su-aalooyinkaasaa hordhigay. marka su-aasha markaad hordhigto waxaa ugu muhiimsan in markaasi marka ugu horeysa inaad targetkaagii ogaato oo kadibna actionkii aad ku fulin lahayd. actionkan wuxuu ka kooban yahay
in marka preparation aad ka bilowdo horta inuu kow environmentiga ama fasalka aad u diyaariso fasal doodii ka dhici karta ama ka soo geli karta inay noqoto oo nowskii oo kale iyo inuu hoos u dhaco oo kale ardada in macnaha qaylada iyo buuqi iyo istaago inaad ka shaqayso sidoo kale waxaa muhiim ah oo kale in markaasi dhaqdhaqaaqa ardada inaad xakamayso in preparation good aad samayso qaabkay u fariisan lahaayeen oo kale intaba aad hagaajiso kadibna waqti ku filan aad siiso management yaa ku xigto actionka markaa la imaanayso inaad manage garayso macnaha waqti ku filan activity-yada inaad siiso activity-gu ardayga waxay ka dhigaysaa in nolol maalmeedkiisa uu ku dabaqo wixii uu bartay maanta oo kale in nolol maalmeedkiisa uu ku dabaqay gaarsiin marka maadaama ay taas ka dhigayso muhiimad gaar ay leedahay in laga boodana ma qurux badna waa meeshan marka activity-ga aad u muhiim u yahay in laga boodo oo aad iska sahashato ilaan casharka naftigiisa xitaa ardayga inuu aad mararka qaar activity inuu kugu filnaadaaba dhacaysa oo activity markuu qaato ardayga just inuu u baahdo oo keliya definition oo keliya inuu u baahdo definitioniska oo kale waxaas maxaa la yidhahdaa just inuu u baahdo laakiin casharka almost oo kale iyo wuxuu dhan inuu wada fahmaaba dhici kartaba casharka hadafkiisa guud oo laga lahaa oo dhan mararka qaar activity inuu soo bandhigaa laga yaabo sidoo kale marka su-aashaas marka la soo bandhigo in managementiga saas u samayso inaad manage garayso oo time ku filan aad siiso gaad garayso su-aal kasta oo ku hagi karta marka hadafka aad experimentiga ama activity-ga kugu gaadgarayn ama ardayga ku gaadgarayn kara dhan in markaasi maxaan ku yiraahdaa aad samayso okay si guud ahaan waxaa ugu muhiimsan IM-kaagii iyo procedure-ka aad mari lahayd oo hadda aan sheegnay iyo result-iga tan marka inaad sida uu maxaan ku yiraahdaa hadafkaagii guud saad ku xaqiijinayd bas مثلا to conserve water and use it probably muhiimadda taas ay ahayd sidii uu ku isticmaali lahaa ama conserve water and use it probably biyaha taasaa muhiim ahayd marka activity marka inaad meesha ku hagto experiment marka tijaabo marka casharada sidaa sheegnay waxay leeyihiin activity way leeyihiin experimentsna way leeyihiin experimentyada waxaa jiro videos aa jirto markaas maxaan ku yidhahdaa YouTube-ka aad ka fiirin karto weli waxaa fiican in experimentiga iyaga markay sameeyaan kadib in YouTube-ka aad u geliso oo iyagana daabadaan taasna waa la sameyn karaa saasaan fiican inay kow iyaga sameeyaan qurxo experimentiga marka experimentiga qaabku u dhisan yahay waxaan ku sheegnay kow qaabku waxaa loo soo bandhigaa statement ahaan in loo soo bandhigo ama su'aal ahaan in loo soo bandhigo waxa la sameynayo kadibna marka waxaa ku xigay experimentiga materialist ku xigo materialist marka waxaa lagu soo bandhigaa laba shayba waa lagu soo bandhigayo equipmentskii loo baahnaa wax kastoo loo baahan yahay waa meesha lagu soo bandhigayo waa materialist marka waxay noqon karaa marka oo meeshan badanaa lagu soo bandhigaa reagentska la isticmaalayo kale chemicals oo kale haddii la isticmaalayo iyo sidoo kale reagentski la isticmaalayo iyo materialska ama equipmentska la isticmaalayo meesha lagu soo bandhigi lahaa halkaan lagu soo bandhigaa marka hadda clean test tube oo kale marka test tube-ka waa tuubadii yareed oo dhiigga lagu qaadayo kale la heli karaa iyo waxaa u baahanaysaa marka copper 2 sulfate isaga baahan tahay iyo unknown liquid markaad rabtid inaad test garayso biyihiyaa rabtaa inuu sheegaan presence of water meesha biyo inuu yaalo ama uu ku jiro oo kale inaad test garayso copper sulfate color change ay sameynaya soo taasoo kaliya waa marka inta waa materialskii marka waxaad u baahnayd lagu soo bandhigaa marka waxaa ku xigoo kale materialka procedure-ka marka procedure-ka ayadana sidaan hore u sheegnaba experimentiga stepskana waa lagu soo bandhigaa aad raaci lahayd sidoo kalena haddii ay cautions ay leedahay oo kale ama khataro laga yaabo in experimentyada ay leeyihiin oo kalena waa la raaciyaa macnaha buugga markaad fiiriso isaga gaar kama dhigin cautionska oo kale gaar uma sheegin
laakiin waxaa lagu dhex sheegaa procedure-ka lagu dhex sheega marka in haddii qataro ay jiraan oo kale oo experimentyada qaarkood qatar lala kulmi karo oo kale markaad experimentiga aad sheegay sidoo kale stepkii ama talaabo loo soo bandhigaa talaabada koowaad talaabada labaad macnaa step 1 iyo step 2 saasaa loo soo bandhigaa marka step 1 waxaa fiican marka observationka inaad ku dul sheegtaa fiican markii matalan talaabada koowaad oo kale marka la sameynayo experimentiga waxaa fiican markii hadiiba qatar aysan ku jirin oo kale in asaga sameeyaa fiican experimentiga haddii qatar uu ku jirin laakiin haddii qatar uu ku jiro oo kale in markaasi macalinka uu sameeyo adii aad samaysid oo markii aad samayso kadibna aad markaasi maxaan ku yiraahdaa markaad samayso kadib marka asagana uu taasaa fiican haddii qatar ay ku jirto inuu macalinka sameeyaa fiican ardayga la tuso keliya marka sidoo kale markii marka stepkan aad u dirto kale waxa uu la kulmay observationka inaad ku dul wado waxa uu la kulmay inuu nood gareeyo marka sidaas samayso ama biyi aad ku shubtay sida maxaad aragtay in hor laga weydiiyo marka biyo ku shub sida maxaad aragtay marka in procedure-kii ama step kasta markuu sameeyaba observation-kii marka wixii uu la kulmay isla markiiba in hor laga weydiiyo experimentigii wixii markuu sameeyo talaabada markuu qaado maxaa la kulantay maxaa aragtay inuu dhaho kadib waxaa ku xiga marka observationkii marka waxaa fiican inaad procedure-kii observation-kii inaad isku dul wadaa fiican oo aad dhahday haye maxaad aragtay inaad ku dul wado marka kadib intuusan conclusion-ka gaarinba inuu asaga marka dhihi karo waxaasaan la kulmay sidaas daraaddeeda presence of water waxaan ku ogaan karaa color change-gaas hadduu dhaco presence of water ha jiro biyo waay waxaas in markaasi uu asagaba gaaraba inta aan la sheegin maxaan ku yiraahdaa observation-kii iyo waxaad isku dul sheegtay iyo procedure-kii conclusion-kii intaadan buugga la tusinba ardayga wixii uu arkay markuu sheego inuu go-aan qaadan karo oo u dhihi karo maxaan ku yiraahdaa presence of water waxaas caddaynaya waa kan marka ugu dambeyn intaas marka conclusion-kii laakiin conclusion-ka waxaa fiican inuu ardayga ka imaado asaga kadibna marka waa kana si kooban marka conclusion-ka waa meeshii natiijada lagu soo bandhigayo marka wixii la sameynayo oo dhan halkaasaa lagu soo bandhigaa marka halkii lagu soo bandhigayo waa marka okay assessment marka jabtarka waxaa ugu muhiimsan oo markii aad sameynaysid marka jabtarka dhigtid kadib in markaasi assessment aad sameyso ahdaaftii jabtarka ma la gaaray in la gaaray iyo in la gaarin meesha xaqiijinaysa ama waxyaalaha xaqiijinaya waa marka buugoo kale wuxuu isticmaalaa asaga exercise-yana wuu isticmaalaa iyo sidoo kale wuxuu isticmaalaa chapter review questions ku qoranaa jirto exercise-ka oo kale waxay xaqiijinayaan marka ahdaaftii casharkay xaqiijinayaan chapter review questions-kana waxay xaqiijinayaan markaasi ahdaafta guud ee chapter-ka oo dhan ay objectives-ka chapter-ka uu leeyahay xaqiijinayaan marka oral questions waxyaalaha isticmaali karta oral questions inaad isticmaasho oral question waana waxa ugu badan isticmaali karto sababtoo ah ardayda markasta group waaye in markaas aad su'aalo isticmaasho su'aal ahaan aad u weydiiso waxaa kaloo isticmaali kartaa exercise-yada casharka oo kale casharka dhammaadkiisa inaad ku qiimeyso isla markaasna record garee marka chapter review questions aa jirto marka chapter kasta dhammaadkiisa review questions sidoo kale homework loo diri karaa assignment-ya loo diri karaa jirta marka in assignment-kaas loo diro okay xalqadeenna marka lixaad ee form 4 waxaan kusoo gabagabaysanaynaa halkan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.